السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا شرفت له وأنا سلامي سلام كتب أخيارتا جعلها إيمانت وحان ربا فيديو عصب إن إذن لبد عنه فيديو غاس وحكو سابسين هاي سؤال شرطة وحان قبل سؤال سؤال مدوني ساينة هرمرسو أخوانتا كوسا ليسان لسيدا برنامجيدا سيدا ويب سايت يدا هدي جوابتا تايها فيديو غان وفيديو غاقا تابو دميسو waxaad ka faa'iidi doontaa wax badan insha Allah. So videogan videoyaasha kale waa ka duwan yahay. Waxaan uga hadli doonaa HTML iyo CSS. Videogan wuxuu quseyn doonaa marka dadka beginnerska ah oo ku cusub web designing ama web development-ga oo basic ah. So videogan wuxuu ka caawinaa sidee ugu sameyn kartaa website-kaaga page ama website-kaaga aad ugu sameyn kartaa animation sawiro noqonayo ama sawiro soo soconayo kuwaasoo u shaqeyn doona qaabka website-yada caalamiga ee u shaqeeyaan. So sidee u shaqeyn doonaan horta videoga ama programka aan fiirino qaabka u shaqeyn doono, kadib waxaan arki doonaa qaabka aan u isticmaali doono projectiga. So waa kan aad ujeedaan waa sawir wuxuu leeyahay borderskaas uu leeyahay waxay leeyihiin shadow, sidoo kale wuxuu leeyahay sawiro dhaqdhaqaaqa waad ujeedaan. So marka sideen u sameeyay projectigan. So projectigan waxaa loo yaqaanaa slideshow oo ama slide imaging. So sidee loo sameeyaa? Waxaan isticmaalay wax loo yaqaano HTML oo idana gooniya iyo CSS oo designing aan ku sameeyay. So sideen u sameeynaa? So haddaad horta intaanan videoga gudaha u galin hadda channelkan ku cusub tahay oo la dhahayo Mutis Help, subscribe sar, asxaabtaada la wadaag oo share garay, sidoo kale like sar si dhiirigelin igu noqoto. sidoo kale waxaan idin leeyahay haddaad rabtid inaad ra'yi igu soo biiriso commentiga igu soo dir ra'yigaaga. So marka aan bilowno video markaan bilaabeyno videoga waxaan u baahanahay sidaan horey u sheegnay inaan isticmaalno text editorkaas oo aan ku sameyn doono projectigeena. So waxaan soo furan doonaa text editorka markaan soo furto waxaan u baahnaan doonaa labada shay aan u baahnaan doono waxay noqon doonaan inaan isticmaalo wax loo yaqaano HTML file iyo CSS file. So HTML file iyo CSS file markaan rabo inaan sameeyo waxaan furi doonaa folder ay ku qoran tahay HTML, kadibna new file aan ka sameysan doonaa. Fileka markaan sameysto fileka ugu horeeya waxaan ku qori doonaa slider.html. midkan waa midka datada la gelin lahaa. sidoo kale waxaan u baahanahay meel aan ku sameysto stylekeyga ama CSS-ta. So waxaan leeyahay slider, sidoo kale slider.css intaan leeyahay. So markaan sameeyo labadan waxaan ku bilaabi doonaa meeshan oo HTML-ka. Okay, waxaan qori doonaa HTML5, kadibna intaan dhihi doonaa meeshan documentiga ku qoranta waxaan ku qori doonaa application for sliding. waxaan ku qori doonaa application okay wait application for sliding aan ku qori doonaa. markaan ku qoro application for sliding waxaan leeyahay Control S waan save gareyn doonaa. waxaan ka tagi doonaa marka folder meesha uu yaalo. folder markaan saas u tago waxaan tagi doonaa meesha ay ii yaalaan programka uu ii yaalo. programka wuxuu ii yaalaa tusaale ahaan hadda markaan tago tusaale ahaan imageska aan tago aan ku laabto HTML-ka waa kan waxaa igu qoran slider.html. sliderka marka hadda waxaan ku qortay application for sliding. So markaan meeshaan marayo waxaan u baahanahay inaan si aan u baroobeeyo inuu slidingkan shaqeynayo waxaan ku qori doonaa bodyga something. waxaan dhihi doonaa h1, waxaan dhihi doonaa hello world oo kale hello world. waxaan fiirinaa in hello world shaqeynayso iyo in kale ama bodygan inuu shaqeynayo. So waa ujeedaan uu shaqeynaa. So markaad waxaan bilaabeynaa cashirkeena. So waxaan leenahay marka aan rabo inaan bilaabo cashirka first waxaan sameysan doonaa div ama sidaan hore ula soconay div class aan sameysan doonaa. classkaas oo slider ka sameyn doono ama box aan dhihi doonaa ama slider waxaan rabnaa dhihi doonaa. Okay, div sliderka markaan sameyno wax kale ma sameynay waa save gareynaa. So waxaan tagi doonaa CSS-ta. markaan CSS-ta saas u tago waxaan sameysan doonaa bodyga in aan u sameeyo wax loo yaqaano
bodyga markaan rabo inaan margin u sameeyo wax kale ma sameynaa, waxaan leeyahay bodygayga marginkiisa waxaad ka dhigtaa tusaalehaan 0 kadibna paddingkiisa waxaa ka dhigtaa isna 0. yacni markaan saas dhaho waxaa kaloo background aan siin doonaa. backgroundkayga waxaan ka dhigi doonaa backgroundka white aan ka dhigi doonaa. waxaan leenahay backgroundkeena waxaad ka dhigtaa cadaan ka dhig. waan save gareyn doonaa. waan ku laabanaynaa marka programka. markaan saas ugu laabano refresh dhahno waxaad ugu jeedaan backgroundkeena sidiisa horeba cadaan u ahaa, laakiin waxaaba cadaankaasaan u baahanahay inaan ka dhigo. haddaa rabtid fiiri backgroundka inuu isbedelo, haddaa rabtid waxaad leedahay hashtag 31 whatever it is aad u baahan tahay samayn kartaa css-ta backgroundka. okay, waxaa qaldan sug aan ku laabto. waxaan leenahay 31 so backgroundka waa sidaas. waxaan leenahay okay, css-ta ma isbarin iyo slider, يعني HTML iyo CSS misbaran qalad saas ku imaado. waxaan leenahay linki relationka aan sameynayo sidaan hore u sameyn jirnay waxa weeye slider.css. waxaan leeyahay save. kadib markaan save gareeyo refresh aan leeyahay waxaan arki doonaa backgroundku uu isbedelay. so backgroundka markuu saan isku bedelo aniga marka ma u baahni colorkan black ah, darteed waa ka dhigan kartaa, laakiin aniga waxaan ka dhiganaa colorka cadaanka ah. waxaan leeyahay waxaad ka dhigtaa white. so cadaanan ka dhiganaa. refresh aan leeyahay waxaan ku laabanaa pageka. refresh aan leeyahay cadaankiisa waa aada. so marka waxaan rabaa inaan qurxiyo. so slide-ka aan ku bilaabayo wuxuu noqon doonaa, waxaan dhihi doonaa slider dotkan waxaan u isticmaalaa class waxaa loo isticmaalo يعني class markii div la joogo, يعني css markii la joogo waxaa la isticmaalaa markii class la joogo dot, markii id la isticmaalayo waxaa la isticmaalaa hashtag. so marka hadda waxaan isticmaalaynaa dot sliderkan u baxsanay, يعني namekan sliderka meeshaan namekan waxaan ka keenay halkan, waxaan ka keenay meeshaan sliderka aan classkan u bixiyay. so nameka classka waxaan soo qabsaday sliderka. kadib waxaan dhihi doonaa sliderka widthkiisa wuxuu noqon doonaa meesha imageka u gali doono waaye. widthkiisa wuxuu noqon doonaa tusaale ahaan 800 pixel. 800 pixel. heightkiisa wuxuu noqon doonaa sidaan la socono 400 pixel. waxaan leenahay 400 pixel ka dhig. sidoo kale waxaan sameyn doonaa backgroundka intaan gelinin waxaan fiirinaynaa qaabka uu noqonayo inaan fiirino. so ma arki kartid ilaa border ugu sameysad. hadda wax ma ugu jeedaa meeshan waa maya. so waxaan sameynaynaa border aan ku dareynaa. so borderka saan u aragno qaabka u sameysmaayo sawirka border aan leenahay 1 pixel. kadibna waxaan leenahay solid. kadibna waxaan leenahay black. kadib markaan black dhahno waa safe aan leenahay control s oo ku laabanaynaa refresh aan leenahay. so waad ujeedaan borderka meesha uu fadhiistay halaan saan uu fadhiistay. so waxaan sameynaa merging inaan ku sameeyo, hoos aan usoo dejiyo. so mergingka aan sameynayo qaabku noqon doono aan aragno. si aan merging u sameeyo waxaan leeyahay meeshaan waxaan ku qori doonaa wax loo yaqaano waxaan leenahay tusaale ahaan mergingkiisa waxaan leenahay merging, يعني mergingka aan isticmaalayno wuxuu noqon doonaa inaan merging top aan kasoo dejino. tusaale ahaan aan dhahno merging, waxaan leenahay merging top aan leenahay. waxaan leenahay tusaale ahaan merging waxaan leenahay 100 pixel. sidoo kale waxaan leenahay automatic. so markaan saas dhahno waa save gareynayna waxaan leenahay refresh. so markaan refresh dhahno waxaan arki doonaa mergingka inuu imaaday halkan. so mergingka marka yani waxaan ka wadaa topka automatic ahaado, laakiin leftiga waxa kasoo sigto 100 pixel. so marka centerka uu imaaday korna uu kasoo sigto hoosna uu joogaa. so waxaan leenahay marka sidoo kale waxaan ku laaban doonaa inaan soo gelino sawir meeshaas si aan sawir usoo geliyo waxaan u baahanahay inaan dhaho backgroundka aan isticmaalayo. marka midaan sheega markaad ratid inaad background image aad sameysato waxaa qasaba video slidingka markaad ama image slidingka markaad sameynaysid waxaa qasab noqon doonto in ay imageska isku wax noqdaan isku size. يعني photoshopka tagaysa imageyada aad u baahan tahay hal size aad kasoo dhigi doontaa. tusaalahan direct waxaa ka dhigan kartaa 800 ka badan waa sameysan kartaa haday kugu xiran tahay 800 iyo 400 oo widthka 400 oo heightka ah. daarid waxaa sameysan kartaa 1200 oo widthka 720 oo heightka. waxaad ka dhigan kartaa adeeg ku qosaysa. so marka waxaan leenahay
background image-kayga wuxuu la mid noqon doonaa URL aan leenahay URL ahaan loo soo akhrinayaa bracket aan fura URL-ka aan soo akhrinayo wuxuu noqon doonaa image slash aan leeyahay image-ka aan rabo kan ugu horeeyo wuxuu noqon doonaa number 1 waan save gareyn doonaa so background-ka marka aad directed width-kaaga iyo background-ka inay isla ekaadaan waxaa fiican inaad ka samaysatid waa kan oo ujeedin inaad isku size ka soo dhigato directedna cover ka dhigan kartaa taasna waa shaqo kale laakiin waxa ku fiican in sawirada aad soo gelinaysid inay isla ekaadaan so first face waxaan soo gelinay meeshan sawir so wax animation ma laha wax dhaqdhaqaaq ma laha laakiin background ku hubsanay waan soo gelinay si wanaagsan uu fadhiyaa so waxaan sameynaynaa marka anagoo meeshan joogno sidoo kale waxaan sameynaynaa inaan dhahno intaan leenahay slider-ka anagoo joogno waxaan leenahay marka tusaale ahaan waxaan leenahay box shadow aan u sameynaynaa waxaan leenahay box shadow aan u sameynaynaa box shadow-ga aan u sameynayna wuxuu noqon doonaa marka inaan isticmaalno wax loo yaqaano 0 waxaan leenahay 60 pixel okay regba waxaan leenahay regba okay kuwan colorskan ma u baahni waan ka saari doonaa waxaan isticmaali doonaa 00 waxaan isticmaali doonaa wax loo yaqaano 0,0,1 yani waxaan rabaa inaan black isticmaalo kadibna waxaan leeyahay semicolon so waxaan dhahay marka meeshaan box shadow black aan ka dhigay so hadda marka shadow ma laha laakiin shadow uu yeelan doonaa fiiri waa isbedel ka dhaco refresh aan leedahay fiiri wuxuu yeeshay shadow hore iyo gadaal uu yeeshay so inta shadow yeeshay kor shadow yeeshay so waxaan leenahay marka hadda hoosaan usoo degi doona waxaan sameynaynaa border radius inaan u sameyno border radius waxaan rabaa inaan geesaha kasoo jebiyo si uu ugu ekaado noocan oo kale aan ku laabto si uu ugu ekaado geesuhu kama maqan yahay ujeedaan si uu ugu ekaado noocaas oo kale geesaan ka jebin doonaa waxaan dhihi doonaa marka border radiuska waxaan leenahay border radius waxaan ka dhigi doonaa 2 pixel ama 10 pixel solid 10 pixel okay 10 pixel border radiuska solid waxaa qaato kan yani waxaan ku qalday borderkanna wuxuu noo ahaa tusaale waan ka bixin doonaa ma u baahnin waan save gareyn doonaa kadibna waxaan leenahay refresh waxaad arkaysaa marka in borderki uu yeeshay laakiin wax animation ma laha si aan animation u sameeyo waxaan leeyahay meeshaan waxaan ku qori doonaa wax loo yaqaano waxaan leeyahay animation fiir marka animationka aad fahantid animationka waxa looga baahan yahay waxaa kamid ah in nameka oo animationka lagu sameynayo soo gelisid halkan sidoo kale xilliga uu qaadanayo animationka iyo qaabku animationka noqon doono so waxaan leenahay marka animationka aan rabo namekiisa waxaa la dhihi doonaa slider nameka waxaa la dhihi doonaa slider marka aan soo gelinayo keyframeka slider uu noqon doona wuxuuna qaadan doonaa 20 second sidoo kale waxaa ii dhiman okay inta aan ka saarna kan 20 second uu qaadan doonaa qaabka uu noqon doona waxaa waaye infinite kadibna waxaan leenahay save control s so marka animationka haddaan refresh dhaho wax animation ma dhacaayo wuxuunan u dhiceynin yani keyframe ma sameynin so keyframeka sidaan u sameynaa keyframeka waxaa la dhihi doonaa add keyframeska waxaa loo isticmaalaa waxyaalaha lagu dhaqaajinayo animationka slidingka loo isticmaalaa iyo in css ta isticmaasho so waxaan leenahay keyframes markaan keyframes dhahno waxaan waceynaa marka magacaan halkan ugu bixin oo slider ah kadibna sliderka markaan dhahno waxaan leenahay marka sliderkayga marku uu yahay 20% markuu 20% sliderkaygu joogo waxaa soo gelisaa sawir la dhahayo sliderkayga markuu 20% joogo animationka sliderka waxaad ka dhigtaa tusaale ahaan waxaad soo gelisaa sawir soo geli sawirkaasoo noqon doona backgroundkiisa tusaale ahaan background soo geli aan dhihi doona background soo geli backgroundkaas urlkiisa uu noqon doono image/2.jpg soo geli tusaale ahaan waaye safe dheh control s v hadda aan ku laabto markaan refresh dhaho it means sliding uu bilaabay waad ujeedaan يعني markuu 20% markuu uu gaaro waxaad soo gelisaa sawir la dhahayo 2 jpg sidoo kale markaan rabo inaan sii wado 20 aan ka bilaabay waa sii wadaynaa waxaan leenahay markuu uu gaaro 40 20 aan boodeynaa daartid waxaad aragtida boodi kartaa anaga 20 aan boodeynaa 0 ka bilaabi kartaa ilaa 100 aad gaarsiin kartaa adag kugu xiran tahay halaa sawir aad haysatid iyo halaha second aad u baahan tahay so marka waxaan leenahay 40% markuu joogo waxaan leenahay background aan leenahay waa easy waxaan leenahay background
markaan background aan waxaan leenahay url ka aan rabo qaabkiisa wuxuu noqon doonaa image-ka aan u baahanahay. image-ka waxaan isticmaali doonaa tusaale ahaan image-ka saddexaad. intaan leeyahay waxaan leeyahay save control s. okay, markaan haddana waxaan tagi doonaa meeshan, waxaan dhihi doonaa enter. waxaan dhihi doonaa hadduu u gaaro 40 waxaa ku dartaa 60% markuu gaaro image-ka url-ka background-kiisa ha aado. tusaale ahaan background image-ka url-kiisa ha aado, wuxuu aadi doonaa image slash waxaan leenahay 3. يعني 3 waa soo qaadanay, 1 koraan kusoo qaadanay, 4 ha aado, semicolon dheh, enter dheh, hoos sii deg. waxaa leedahay markuu 80 yahayna maxaa sameynaynaa 80%, it means 20 aan boodaynaa. 80% markuu yahay background-kayga ha noqdo tusaale ahaan image-kiisa waxaan leenahay url image-kiisa ha noqdo wuxuu noqon doonaa 5. so 5 markuu noqdo semicolon. marka ugu dambeysa 100 uu tagaayo waxaa fiican image-ka ugu horeeyo inaad ka dhigato kan ugu dambeeyo. so waxaan leenahay markuu 100 tago waxaan rabaa inaan soo geliyo 5 sawir waaye inaan soo geliyo rabaa. waxaan leeyahay background-kayga markuu uu gaaro url-kiisa 100% markuu gaaro waxaad image-ka kasoo dhigi doontaa meesha uu ka bilowday oo ah number 1, kadibna semicolon aan leedahay, enter aan leedahay. programka waa kaas. aan refresh garayna marka aan fiirino qaabka u shaqeynayo. wuu bilaabay sliding-ka 20 second uu qaadanaa sliding walba 20 second slide walba notification-kiisa ama sliding-kiisa wuxuu qaadan doonaa 20 second aan soo dooranay. so videogeena halaasuu ku eegyahay. haddaad videogan jeclaatay channelka ama videogan aad jeclaatay like saar, waxayna ii noqon doontaa dhiirigelin. haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar. haddii aad rabtid inaad ila wadaagtid xog commentiga igu soo dir, asxaabtaadana la wadaag videogan. intaan videogan oo kale aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. khayr badan.